gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cidi jiray Faysal Al-Waraabe oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada London ee dalka Britain ayuu waxa uu soo bandhigay qorshaha ay isbahaysiga mucaaradku ay ku waajihi doonaan marka madaxweyne Silaayo ay dhamaato muddo xileedkiisa isagoo ka hadlay waxa uu yiri waxa loo baahan yahay shir la isku yimaado shir qaran anoo shir qaran micnaheedu ma dawladdu way fiilgooday wadanteena shirka qaran waa inay ka soo baxdaa wixii laga gudbi lahaa inta dawladdaas ee Turkiso maadaama ay dib u dhacday extension ka soo baxaya maaha mid siyaasadeed 26 June way ka dhamaatay labada goloba wasaaradda iyo baarlamaanka wixii laga bedel lahaa ee laga bixi lahaa waa in la isku yimaado halka ay ka soo baxdaa dawlad midnaba qaran ah oo arrimaha inagu foolan ee inagu soo socda si midnimo ah aynu kaga baxna oo labada ilmaadeerka ah ee maanta soo saaray communique-ga ee moodiyay Soomaaliya ka aqli badan yihiin aan taagtooda tusna oo la saaro sheekadu noqonay ay dhulkooda noqota siirayna waxaan leenahay madaxweyne siirayna waxaan leenahay Soomaaliya gacmaha ayaan ku burbur weyn baa tahay naaqin baa tahay waa inaad dalkani nabadgelyadiisa iyo midnimadiisa ka shaqaysa ragga ku sheekaysanaya inoogu dhufta 2 sano waxba adduunka naga mu galina waxaan leenahay ka jooga dalkan 2 sano kordhisa ma qaadi karo shirka hadda la qaban waayna annaga shirka qabanana injineer Faysal Al-Waraabe sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ciidamada ay dawladda federaalka Soomaaliya ay u tababarayso maamulka Puntland isagoo shacabka iyo xukuumadda madaxweyne Silaayo ugu baaqay in loo midoobo sidii looga hortagi lahaa ciidankaasi ayaa waxa uu yiri waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya waa arkaysan si loo galay Soomaaliya road mapkii garoowe lagu sameeyay innaga ay nagu soo socda waqti maanta durba ay leeyihiin 6 kun hala keen waxa loo baahan yahay inaynu ishubayno mar dambe aan xasuuq nagu dhicin